shacabka Soomaaliyeedna wuxuu u baahan yahay amni iyo nabad. annaga halka cadow oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay waa kooxaha argixisada al-shabaab. laakiin haddii dhexdeennii dad Soomaaliyeed oo inta qoryo qaatay iyo bistoolado muwaadiniin Soomaaliyeed dhib u geysanaya ku talagalay inay jir dilaan ama ay boobaan ama hantidooda iyo maalkooda u soo jeestaan, waa nasiib dartii ugu weyneed. annaga waxaan bilownay olole aad u ballaaran oo ah in laga hortago dadka maleeshiyaadka ah ee burcadda ah ee xaafadaha iyo shacabku ay ka nasan laayihiin. magaaladan Muqdisho caasimad ma noqon karto, lama tartami karto caasimadaha adduunka haddii ay nagu dhex jiraan dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin Soomaaliyeed fal u geysanaya. hadda maanta hortiina waa ka muuqataa hubkii lagu soo qabtay 4 ka mid ahna deegaanka Garas Baale waa dadkii muddo la raadinayay, booliiskana ay soo gudbiyeen. annagana shirkeena amniga habeen walba uga hadalno. waxaan nasiib wanaaga shacabkan u sheegaynaa in maanta gacan lagu soo dhigay, weliba iyagoo isku dayay inay gabar farxumo u geystaan. waa dhaqanka islaamka, dhaqanka Soomaalidu aad bay uga soo horjeedaa. annaga waxaan rabnaa in gacan bir ah lagu qabto dadka noocaas ah burcadda ah ee soo jeesta. sidoo kale degmadan Dharkinley muddaan ka hadalnay, waxaan haynaa 17 qof magacyadoodana loo soo gudbiyey oo lagu eedeynaya inay burcad yihiin. maanta 2 ayaa gacanta ku jirta, kuwa kalena waa u digaynaa, waana u soo soconnaa. qofkii muwaadin Soomaaliyeed dhib u geysta wuxuu u geystay Soomaaliya oo dhan. caasimadan ma sii joogi karo qof isku dayaya inuu burcadnimo iyo 2019 isku dayo magaaladan. waa dhammaatay waqtigii fowdada, waqtigii mooryaannimada, waqtigii maleeshiyaadka. waxaa la joogaa waqtigii muwaadin walbow waddankaaga maxaad u taraysaa, caasimadaada maxaa u taraysaa, noqo muwaadin. inta qoryaha haysata iyo bistoolooyinkana waxaan leenahay haddaba iska tuura oo ummaddiina ka mid noqda, wax barta, waddankiina u adeega.